Real Madrid oo hakisay wada hadaladii qandaraas kordhinta ee Vinicius Jr. Kooxda Real Madrid ayaa si ku meel gaar ah u hakisay wada hadaladii qandaraas kordhinta ee ay la lahaayeen xiddiga reer Brazil ee Vinicius Jr. sida uu daaha ka qaaday suxufiga George C. Beacon. Waxaa la xaqiijiyay in Real Madrid aysan sii wadi doonin wada hadalada waqtigan. Dib ayaa loo dhigay ilaa xil ciyaareedka 2025-2026. Qandaraaska Vinicius waxa uu dhacayaa dhamaadka June 2027. waxaana kooxda lagu tilmaamay inay weli ku wareersan tahay arrinta mustaqbalkiisa. Haddaba maxaa sababay hakadka? Vinicius ayaa la sheegay inuu dalbaday mushaar gaaraya 30 milyan oo euro sanadkii, taas oo ay ku jirto mushaar toos ah, gunnooyin dheeraad ah oo ka baxsan mushaarka, iyo lacagta uu qaadan doono marka uu saxiixayo qandaraaska. Real Madrid waxay si cad u sheegtay inaanay weligood siin doonin Vinicius mushaar ka sareeya Kylian Mbappe, oo ah xiddiga ugu mushaarka badan waqti xadirkan kooxda. Qaab ciyaareedkiisa hadda Vinicius Jr. ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed aan wanaagsaneyn tartankii dhammaaday ee Club World Cup, isagoo kaliya hal gool dhaliyay dhammaan ciyaarihii uu ka qayb qaatay. Real Madrid ayaa haatan doonaysa in la hakiyo xiisadda qandaraas ee Vinicius Jr. iyadoo aysan diyaar u ahayn inay jebiso nidaamka mushaarka kooxda. Wadahadallada waxaa la filayaa inay dib u bilaabmaan marka uu bilowdo xil ciyaareedka cusub, balse arrintan waxay keeni kartaa mugdi cusub oo ku saabsan mustaqbalka xiddiga reer Brazil ee Santiago Bernabéu. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii koobnaa ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo suuqa kala iibsiga. Aragtidaadana qaybta hoose ee commentina ula wadaag. haddii aad ila dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad asxaabtaada la wadaagtid. haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biiro oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.